waxaan ku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaan bogaadinayaa hambalyeenayaa una ducaynayaa kalfadhiga afartan afraad ee dowladda Puntland. runtiina waxaan isleeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu si nabadgelyo iyo wax fiican oo ummaddu ay ka rajaynayso ay ka soo baxaan. mas-uuliyadda xildhibaanada cusub oon isleeyahay rajo badan in ummaddu ka sugayso inay u horseedaan dalka sidii hore si ka duwan aragti fiican la yimaadaan la wada socdo oo bulshada iyaguna wada socdaan. waxaan aad ugu hambalyeenayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Mr. Dhoobo iyo labadiisa ku-xigeen iyo guddigaba oo ogolaaday inaan wada shaqeyno bulshada rayidka ah, heshiisna aan wada galnay guddiyada kala duwan ee baarlamaanka iyo bulshadu inay wada shaqeeyaan. arrinta ugu muhiimsanna waxa weeyaan guud ahaan ku baraarujinaya dowladdana in dadweynuhu iyo wada socdaan mas-uuliyiinta ay doorteen oo aan la kala socon. waxaan aad ugu faraxsanahay heshiiskaas oo noqon doona kii ugu horreeyay geeska Afrika aan wada galnay in ay noqon doonto in guddi walba uu la shaqeeyo qaybaha kala duwan ee dadka aqoonta u leh sektaradaas ay ka shaqeeyaan, ama talo ha noqoto ama research ha noqoto ama dhan walba oo ay noqoto inay kala taliyaan. waxaan kaloo u soo jeedinayaa golaha cusub. waxaan ognahay in xukuumadii baarlamaanka idinka horreeyay iyo kuwii idinka horreeyay horeba baarlamaanadiiba ay baasgareeyeen shuruuc aad u tiro badan. shuruucdaas haddaad dib u milacsataan boqolkiiba waxaan dhihi karaa 80 waxay ahaayeen shuruuc fundinkeeda uu ka yimid international community-ga ama NGO ama hay'ado caalami ah. waxaan aad u soo jeedinayaa hadda tala ahaan baarlamaankan cusub waxaa lagu qiimeyn doonaa shuruucda oo ah tan mas-uuliyadda koowaad ee uu leeyahay baarlamaanku inay xeerdejin yihiin in shuruucdii hore ee qaaradaha noogu jira in laga shaqaysiiyo, inay dib ugu noqdaan shuruucdii hore la baasgareeyay la eego sharcigan shaqayn kee shaqeeyay muxuu shaqayn waayay. taas waa talo soo jeedin lahaa baarlamaanka in dib loo eego shuruucdii hore ee la baasgareeyay oo qaanadaha noogu jira in active laga dhigo. runtii shuruuc badan baa jirta oo halkan martay oo aan weli shaqayn ama aan sidii la rabo u shaqayn. waxaan kaloo soo jeedinayaa shuruucaha baahida ummaddu u qabto oo hadda ka hadlay duqa magaaladu in duqa caasimaddu in shuruucdaas iyo shuruuco badan oo kale ummadda sugayso inaan lala sugin in funding ajnabi laga helo ama wax kale lala sugay. baahi ummaddu u qabto oo mas-uuliyaddeedu idin saaran tahay inaad adinku dhaqaajisaan oo hawshiinayd. xukuumadda waxaan u soo jeedinayaa madaxweyne Deni iyo tiimkiisaba oo isleeyahay way cusub yihiin runtiina in laga hordhacaysan ahayn ayagoo hadda ay xukuumad waqti yar jirtay in ay dowladda iyo dadweynuhu wada socdaan, la tashiga la badiyo, la furo doodo looga baahan yahay dowladda xaggeeda oo ku saabsan la talin taasoo ka iman doonta bulshada ra'yigooda, ha noqoto xagga culimada, ha noqoto dhallinyarada, ha noqoto haweenka, ha noqoto arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda, ha noqoto dhanka amniga. taas waxay noqon doontaa in la wada socdo laakiin aan la kala socon, inaysan noqon oo qofka mas-uulka uu qaato inuu keligiis wax walba yaqaano, aan noqono dad isla tashta wada socda annaguna aan qaybteena geysano. waxaan aad mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa gudoomiyaha golaha wakiilada iyo golaha wakiilada dhammaantoodba oo ugu mahadcelinayo isbedelada ay wadaan iyo shaqooyinka ummadda u hayaan oo leenahayna inay ilaaliyaan midnimada ummadda iyo wadajirka ayna noqoto inaynu wada soconno dhammaanteenna hal meel loo wada socdo lana ilaaliyo xasiloonida waddanka amniga dhammaanna ay noqono dad wada shaqeeya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.